ceelbaxay waa deegaan qadiimi ah oo koobsaday taariikh qaniya carrasan oo ku habboon wax soo saarka beeraha iyo bulsho muruqmaal xoolo dhaqato beeraleya oo tacabka u taqaana astaanta xorriyadda isku filnaanshaha iyo horumarka juqraafi ahaan deegaanka ceelbaxay waxa uu ka tirsan yahay degmada saylac wuxuuna jihada waqooyi galbeed kaga beegan yahay magaalada buurama masaafo dhan 68 kilomitir warbixintan kooban waxaan ku iftiimin doonaa deegaanka ceelbaxay waxayna warbixintani taaban doontaa dhinacyada taariikhda deegaanka wax soo saarka beeraha dhaqashada xoolaha caafimaadka waxbarashada iyo adeegyada kale bulshada warbixintani waxay daaha ka faydi doontaa hab nololeedka bulshada ku nool deegaanadaasi caqabadaha ku gadaaman deegaanka iyo ilaa hadda waxa ka qabsoomay marka la eegayo dhinaca waxqabadkii ay ka filayeen xukuumadda jiif caaqil cabdi ciye dharaar waxa uu deegaanka ceelbaxay ku nool yahay muddo dheer waxaana uu waaye arag u yahay una soo joogay waayo fog iyo taariikhihii kala dambeeyey ee deegaankaasi u gaarka ahaa tan iyo aasaaskii deegaankaasi oo uu tilmaamay inuu ahaa dabayaaqadii qarnigii 19aad sida uu ka warramayo jiif caaqilku ceelbaxay waxay ahayd magaalo in badan jirtay oo aanan magaalada Boorama taariikh ahaan waqtigii la dhisay aan ka daayirin laakiin waxay ahayd meel ay reer guuraa iyo xoolo dhaqata ay ku nool yihiin inta badanna waxay ahayd meesha ugu kaneeco badan sida Dibreweyn iyo meelaha qaarkood oo carruurtu ku dhamaan jirtay dadku buuraha uga baxeen 2000 wixii ka dambeeyay bay dadkii dib isugu soo noqdeen oo halka dib loo soo degay maanta waa magaalo koraysa 2005 markii la marayay baa la sameeyay in meeshii la dego way isbedeleen dadkii waxay isu bedeleen beeraha inay beera qotaan xoolo markay abaariyo waxa ku dhamaadeen ceelbaxay waxay caan ku tahay wax soo saarka beeraha waana mid ka mid ah ilaha dhaqaalaha ugu waaweyn ee ku tiirsan yihiin bulshada deegaankaasi Xuseen Axmed Faarax waa madaxa deegaanka ceelbaxay waana beeraley muruqmaal ah wuxuuna ka warramayaa noocyada dalagga ay la soo baxaan waan ka beeraa basal iyo xabxab iyo tamaad waxyaalaha yaryar kale ee qudaarta ah maxay ama kamsaradii ama baamiyihii dadka waayilada iyo xubnaha wuxuu tirayay dee daabid lagu oo la geeyo ma hayno waxa taraaga galaya ee magaalada dheer geyn karo ilaa saliidinooba dhawe saddexdaa shay weeye majority la beeraay ma sahlana in wax laga beero deegaan ay duruufo badani ku wareegsan yihiin kuwaasi oo dhammaantood caqabad ku ah wax soo saarka beeraha caqabadahaasi ayaa dhinaca kale iskugu jira kuwa u baahan in si degdeg ah wax looga qabto iyo kuwa muddo dheer qaadanaya way dumayaan oo dhismayo ma laha oo ma dhisna waxay ku quudan jireen wax gaar wada jireen mashiino iyo tuumbooyin waxaankaas shidaalkiiba cirka isku shareeray shixir barar baa dhacay marka beerihii waxa hoos u dhac baa ku imanay marka maalinta kalka beerta 20 litir baa la isticmaalaa beerta oo kale wixii ka badanna waxay noqotaa 30 litir 40 litir laakiin marka taloo kale maalinta kalka waxay ku cabaysaa 4 taangi oo buuxdo oo beeca 20 litir marka tanaaba 2 litir maalin kalka cabta ha maalinta ma labay qadi دلوا تريقا كلا ترى مالين بكو عبية لحنا بلوه بس شو أي كوجيتو وحي بشلال بنقولها ما هي سنة سولار نقص ضليا شلالك تنبوين كوا خواصة ونقو كيرو وكل باب محباس فضلنا النظام وهلا كنا سيرن alkii aanu ka filayn in waxa soo baxo geeda qalaabo roolo balaayo ay ku soo dardeen ma naga soo baxo beeri biinaya markaas yeelad caafimaad qaba ayaanu baahanahay ugu daran oo markii ka bixina u qarxaya dawadiisana ma hayno mana maqal dawadiisa laakiin xagaabu laga dhici jiray jiilal kuma dhici jiray markaas isagu uu qarxi markaan ka sameysmay sababoo qaan gaarin buu iska qarxaya geedka jilay cadaale oo iswa taglaanaya geedka aragti
kaasuu igu danaya haddaad dhex marto beer le beertaadiba yardatayeysaa beerta waad aafinaysaa waxna waxsi kalaa geedka afartaba laga arkay ay waan sujiyaa gacanta laguma qabto halkaa waa lagu aasaa haddaad kor u qaaddo beertii baa wada aragtay baalkaa cimiladiisa markaa wasaaradda beeruhuna inta badan nama soo marto oo ma joogtayso oo baahiyaha uma kuur gasho laakiin fariin baanu u diray waxaan wasaaradda beeraha in la naga caawiyo beeraha oo ay wasaaradda beeruhuna ay ka hesho feedbackkeedii wixii yani wax uga soo baxaan oo ay cashuurihii iyo wixii ay dawladda keenaysa ka hesho annagana dee beerihii wax lanooga qabto. dhinaca caafimaadka ayaan sidoo kale u kuurgalnay intii aan ku sugnay deegaanka Ceelbaxay. Nimco Axmed Faarax waa madaxa xarunta caafimaad ee deegaanka Ceelbaxay waxayna inooga waramaysaa xaaladda guud ee caafimaad ee deegaanka, baahiyaha jira iyo sida ay u maarayso baahiyaha dhinaca caafimaadka ee deegaankaasi ka jira. guud ahaan degmadu aad bay iskaga fiican tahay wuxuuna target population-kaygu ka kooban yahay 14,990 wayaan catchment population-kaygu waxaa ka shaqaala xaruntan caafimaadka Ceelbaxay 10 qof iyo hal waashmaan hal cleaner 12 qof ay staff ka shaqeeya 6 healthy iyo 4 nutrition hal cleaner iyo hal waashmaan waxaa jiro kala maxay heedaan 4 iyaguna waxaa jira ICCM oo female health workers oo iyaguna qaybahan buuraha liida ka shaqeeya catchment population-kayga nagu soo dhow biyaha inta badan ayaa nagu yaraada oo waqtiyada hay'adeedu gaabka naga gasho kale ayay biyo la'aan nagu dhacdaa inta badan waxaa naga support garaysaa hay'adda Save the Children qaybta biyaha service-yada ka baxay maxay daan wada dhameystiran health nutrition intaba caqabadaha jira waxaa kamid ah inuu nagu yar yahay qolalku ay nagu yar yihiin oo dhulka dadku ka imanayaan ay tiro dhul hard reach soo kala wax ambalaasan iyaguna ma lihiin dadka 3 saac 4 saac loo lugeeyo hooyooyinka maternity-ga. intii aan Ceelbaxay ku sugnay waxaan booqanay goobaha waxbarasho ee deegaankaasi. Cumar Daahir Xoosh waa mid ka mid ah barayaasha dugsiyada waxbarashada ee deegaankaasi waxaana uu nooga waramayaa heerka waxbarasho ee deegaankaasi iyo caqabadaha kala duwan ee waxbarashada ka haysta ardayda deegaankaasi. uu yahay 3 galaas waxa ku dhigta ardayda 1 ilaa 8 iyo isku dhex dhigta saa darteed waxaan sameynaa sawiradan laba ugu qaybinaa si ay qaybiba dhinac u fadhiisato saasaan u qaybinaa saa darteed waxay u baahan yihiin in naga caawiyo ama maxay aanay dhismaha intii ku filayd in loo dhiso wixii ka dhiman waxa kale oo u baahan tahay ardaydu waxay ka timaadaa buuraha fogfog wax iskuulaho dacarburuq iyo xariirad ma aad u darya dheere nooga dhaxeeya ma jirto intii ka sokaysaba ardaydu way ka timaad saa darteed ardayga buurta ka soo kala subaxdii ee halkana ka rawaxa 12 dee waa masaafo dheer ka yimiday wuxuu baahan yahay fiirin inuu helo cuntadii uu dib ugu noqon lahaa reerkii inuu helo taasina waa baahida macallimiintu waa 3 baa gunaysan 2 waa bilaa gunne saa darteed iyagana waxaan u baahanahay 2 bilaa gunnahana in gunan noogu sameeyo deyrkii la noogu daro daayactirka sida kuraasida oo kale kuraasidii berigii horeysay iyo yeelamika waxoogaa ba ka hadhan wixii kale u dhitay iskuulkaas aad arkaysaa biyo male waxoogaa qolasay baa u yar dhaamin jirtay oo iyadna mashruuc uu ka dhamaaday oo bood wax ugu shubi jireen mashruucaasi markuu dhamaado biyo soo gaaraya ma jiraan dhakhtarkii waa la mid umushii ma helayso biyo ay dumarkii ku moolay biyo nadiif oo lagu ma helayaan mashkiidku dameera lagu soo dhaanshaa marka baahideeda koobaad waa biyo marka waxaan leenahay hay'adaha wasaaradda biyaha in si lanoo amra hay'adaha ama iyaduba ay wax ka qabato magaalo ballaaranaysa dhisrihan waxaan raacnaa Boorama dhisri Boorama ka tirsannahay kolka imika la sheego gobol ahaanna waxaanu raacnaa Silil marka waxaan balnaa dhisri Boorama inuu intiisu ku ekaado dhisri Silil intiisu ku ekaado anagu aan laba dhaxad baan ku dhacnayo. si kastaba ha ahaatee deegaanka Ceelbaxay waa deegaan rajo weyn ka qaba in wax laga qabto baahiyaha jira si noloshu u noqoto mid sahlan oo deegaankaasi ka dhigta mid lagu noolaan karo.